awowayaasheen iyo waalidkeen way ganacsan jireen inkastoo aysan dhaqaalo badan samayn jirin haddana waqtigooda sida loo shaqaysan jiray bay wax u wadeen maanta adduunku waa isbedelay wuxuuna noqday casri waxaana adag in ganacsigaadu uu hirgalo haddii aad meel iska furto ha noqoto ganacsi online ama ha noqoto mid albaab ku furana ganacsi kasta oo la furo 75 ilaa 85% oo kamid ah way khasaaraan marka Afrika la joogo adduunka kalena waa nagu dhowye waxa badbaada waa 15 ilaa 25 wax aan ka badnay waqtiga hadda la joogo guusha laguma gaaro waxa aad ka shaqaynayso waxa lagu gaaraa waxa aad taqaano soo horay umaadan maqli jirin maamahdii ahayd barti yaqaan bari oo ma kororto qofka hadduu leeyahay aqoontii uu ganacsi ku bilaabi lahaa sida uu maareyn lahaa ganacsiga khataraha iyo khayraadkana uga faa'iideysan lahaa oo ganacsigiisaas iyo sidii fikradda hal abuurka loogu bedeli lahaa ganacsi guuleysta oo shaqeeya waxa u fududaanaysa qofka in uu si fudud ganacsigiisa ugu guuleysan karo waxaan ahay Professor Abyad waxaan la shaqeeyay shirkadaha dalka ugu waaweyn jaamacadaha macahadiyada iyo iskuulada waxaana bilaabay ama qayb ka ahaa hal abuurro guuleystay iyo kuwa khasaarayba waxaana maamulay mashaariic waaweyn waana sababta aan u go'aansaday in ugu yaraan 1000 qof aan baro hal abuurka iyo sida ganacsiga cusub loo furto entrepreneurship and startup oon aaminsanahay in ay tahay wadada ugu wanaagsan ee dhaqaale xumada looga bixi karo shaqo abuurna loo heli karo dalkeenuna ku horumari karo fadlan la sii wadaag muuqaalkan asxaabta kale haddaba koorsadan master class-ka waxaan ku baran doonaa idinkii hal abuurka ganacsiga iyo sida ganacsi cusub loo furo ama entrepreneurship and startup waxaana ku baran doontaa wax kasta oo u baahan tahay si aad fikradaada ganacsi guuleysto ugu bedesho iyo wadooyinkii aad u horumarin lahayd haddii ganacsigaadu hore u jirayba waxaad heli doontaa casharadii oo 10 cutub ka kooban book free ah oo ugu talagalay ardada iyo templateya la isticmaali karo waxaana sidoo kale heli doontaa jawaabaha weydiimahaada haddaba si aad isu diiwaan geliso waxa kaliya aad u baahan tahay waa in aad xubin sanadle ah ka noqoto macadka xirfad kaab adigoo booqanaya xirfadkaab.com ama si aan anoo kula fududeyno diiwaan gelinta kaliya WhatsApp-ka hoose ama linkiga hoose ku soo bir si aad WhatsApp-ka nagala soo xiriirtid mahadsanid